galmudug laba bilood ka hor waa tii aan dhuusamareeb markaan ka soo tagnay dawladda federaalka waanu la hadalay mar haddii aan arkay in ay dhuusamareeb iyo cadaado iyo carradii ay xoogaa tashwiish galay ayaan waxaan ku soo dhaweeyay in dawladda federaalka ay shaqaha qabato bal waxay qaban kartaa qabato hadafkaygu wuxuu ahaa inay xaraale howsha isu geeyaan dhuusamareeb iyo cadaado isu geeyaan ahlu sunnadii hore iyo galmudugta cusub galmudugtii isku soo dhaweeyaan wixii jira ka shaqeeyaan oo ay hawsha maadaama anaga inta yabyabtii iyo dhibaatadii nagu badatay yaan bal aanu kaadina markaan bal ku eegno dawladda federaalka ay hawshii markii ay qabatay run ahaantii saluug badan baa jira maanta oo ugu dambeeyay warkii shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha galmudug ma dhiman madaxdiisii wasiiradiisii xildhibaanadiisii iyo madaxweynahii waa joogaan cidlo ma aha waxaan rajaynaynaa haddii wax la dhisana inaan ka dhoono u dabdhexaad waxaa kale oo aad iyo aad muhiim ah Soomaaliya 30 sano la soo dhaafay waxaa dhici jirtay sanadkii 40 milyan oo dollar baa waxay ku baxdaa dib u heshiisiin wax la yiraahdo dib u heshiisiintaasi waa seminar iyo workshop iyo NGO wada dib u heshiisiinta maanta waa ka bedelaynaa magacii waxaan ka dhigaynaa dhab u heshiisiin inaysan dhalanteed noqonee dhab noqoto oo wax dhaba lagu heshiiyo maanta ito gallisoor iyo meesha la yidhaahdo dhabbada iskuma socdaan galmudug laba bilood ka hor waa tii aan dhuusamareeb markaan ka soo tagnay dawladda federaalka waanu la hadalay mar haddii aan arkay in ay dhuusamareeb iyo cadaado iyo carradii ay xoogaa tashwiish galay ayaan waxaan ku soo dhaweeyay in dawladda federaalka ay shaqaha qabato bal waxay qaban kartaa qabato hadafkaygu wuxuu ahaa inay xaraale howsha isu geeyaan dhuusamareeb iyo cadaado isu geeyaan ahlu sunnadii hore iyo galmudugta cusub galmudugtii isku soo dhaweeyaan wixii jira ka shaqeeyaan oo ay hawsha maadaama anaga inta yabyabtii iyo dhibaatadii nagu badatay yaan bal aanu kaadina markaan bal ku eegno dawladda federaalka ay hawshii markii ay qabatay run ahaantii saluug badan baa jira maanta oo ugu dambeeyay warkii